qarawuxu horumara shaqala hormuudkii agar li markay taca deganugu ahaadan hawshiyadana guud deganugu ahaadan hawshiyadana guud رجال aad marta ugu mahadnaqaynaa hay'adda shaqaalaha dawladda kulankan maanta agaasimayaasha guud ee dawladdu isugu yimaadeen hay'adda shaqaaluhu isugu yeedhana runtii wuxuu qayb ka yahay nidaamka kobcinta maamulka dawladda maanta waxaa laga hadlayay waxa ahayd habraacyada shaqaalaha iyo nidaamka shaqaalaha dawladda runtii waxaan aaminsanahay shaqaalaha haddii la doonayo in shaqo wanaagsan la qabto in ujeedadu ay tahay markaa in ay habraac iyo nidaam la raaco jiro halkan waxaan uga mahad celinayaa hay'adda shaqaalaha dawladda oo maanta kulankan u qabatay gudoomiyaasha iyo agaasimayaasha guud ee hay'adaha qaranka kala duwan kulanada noocan waa kulano qaranka faa'iido badan u soo kordhinaya kan maantuna waxa uu kaga duwan yahay waxa lagaga wada hadlayaa habraacyada 16 ee loogu talagalay shaqaalaha dawladda in lagu dhaqo kuwaas oo la isla eegayo wixii ka fulay wixii aan ka fulin ka agaasimiye guud ahaan waana soo dhaweynaa kulamada noocan in la badiyo waxa weeye maanta halkan aan joogno waxa weeye agaasimayaashii wasaaradaha iyo hay'adaha dhammaan dawladda Soomaaliland waxaana weeye session aanu sameynayno oo la xiriira sharciyadii lagu maamulayay shaqaalaha dawladda oo 16 oo hirgalay oo Civil Service Commission hay'adda shaqaaluhu ay soo diyaarisay last year marka hore waxaan ugu mahadnaqayaa hay'adda shaqaalaha oo maanta bisha 10 soo bandhigtay habraacyada shaqaalaha dawladda ama waxaan la yiraahdo policy and procedures shaqaalaha dawladda runtii waa 16 habraac sida loo sharaxay 16 habraac lagu dhaqayo shaqaalaha dawladda qaranka si guud marka laga hadlayo waxa runtii inoo muhiim ah komishanka maamul wanaagga iyo hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay runtii ka midaysan yihiin xagga ilaalinta sharciga oo komishanka u qaabilsan dawladda ilaalinta sharciga dabagalkiisa waxaan siyaasadahan in la fuliyeen kale siyaasadahan qaranka in la fuliyeen kale runtii komishanka maamul wanaagga runtii taa ka shaqeynaya halkan ku adkeynaa fariinta agaasimayaasha guud inay ilaaliyaan habraacyada iyo shuruucda policy and procedures muxuu ahay maanta halkan lagu barayo oversight-ka iyo dabagalkan uu komishanku leeyahay waana si dhow uga shaqeyn doonaa hay'adda shaqaalaha markay marka la faalideed gareeyay ay saa ku dhamaadaan hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa in maalinba shaqada la qabto ay sideedii u fusho dabagalkeedana aanu yeelano ilaa muxuu ahay ay noqonayaan wax walba sidii loogu talagalay runtii taa waan ka shaqeynaa aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa agaasimayaasha guud imaatinkiina kulankani waa kulan wada tashi tababar maaha waa kulan wada tashi agaasimayaashu waa mishiinka ama waa daynamada wada ee dabka ay ku shaqeynaysa wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda oo dhan waa awoodda farsamo ee hagista iyo tilmaamista iyo maamul wadista guud ahaan shaqada wasaaradda oo dhan maadaama waxaynu ka hadlaynaa ay yihiin habraac sharci oo khuseeya shaqada iyo shaqaalaha cidda uu toos u taabanaya awooddeeda kobcinaya waxa weeye agaasimayaasha wasiirada iyo hay'adaha iyo wasaaradaha intaba mar kasta oo shaqadu hagaagto oo nidaamka shaqadu wanaagsanaado sharafteedu waxa leh wasaarad kasta iyo hay'ad kasta wasiirka jooga agaasimaha guud ee jooga iyo guud ahaan shaqaalaha qarankana waxay u tahay in adeeg wanaagsan oo luxulan oo fiican helaan waxaynu gacmaha isu qabsanaynaa waxa weeye taas marka waxaa kulankan aan ugu talagalnay habraacyada ilaa waqtigii madaxweynuhu wareegtada ku dhaqangeliyay soo saaray ilaa maanta inaynu isweydiino maxaa dhaqan galay application-koodii dabaqaadoodii maxaa suurtagalay maxaa caqabaday naga hor yimi sidaynu u adapt garayn karaynaa u joogtayn karaynaa isticmaalkooda hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay doonayaan inay sameeyaan iyo hay'adda maamul wanaag oo shaqada waan iska soo galnaa
markay noqoto xagga governance-ka in shuruucdii iyo siyaasaadkii ama heer wasiir lagu ansixiyo ama heer madaxweynaha lagu ansixiyo ama heer baarlamaanka lagu ansixiyo inay dabagalaan systemku inuu isticmaalay dabaqay la dhaqan geliyay si hufan loo isticmaalo wanaagii ka mid tahay marka run ahaan intaan tallaabooyinka aan la qaadin inaynu ka wada socono ilaa isku hadaf guud baynu nahay oo gacmaha isu qabsano kana sii tashanno waxa u baahan in dib loo eego waxa u baahan in la toosiyo waxa u baahan in wax lagu daro waxaas oo dhan baynu doonaynaa maanta in halkan ku gorfayno kaalintiinuna aad bay muhiim u tahay waxaana wada shaqaynaa dhammaanteen waxa weeye waa shaqadiina inaynu idila wanaajino shaqada guud ee qaranka inaynu wada wanaajino shaqaalaheena soora siino adeegga qaranka aynu siinayna noqdo mid qiimo dhaxalgala iyo horumar wanaagsan oo taaban karo badan la gaarsiiya bulshadeena